salaamullaahi saaxiibayaal waxaan kula wadaagi doonaa fiidiyowgii shalay la wareejinayay iyo xogo waaweyn oo cidna aan kula wadaagin ayaan kula wadaagi doonaa oo sheekadii qarsooneed oo xayaat iyo ninkeeda u dhaxeeyay ayaan kula wadaagi doonaa hasaatee channelka haddaad nagu cusub tahay nagu soo biir milyankii qarka ayaan u saaranahay milyankii qarka ayaan u saaranahay oo soonka inta la gaarinba milyanka aan ku dhufanno dhammaantiina halkaan ayaan ku dabaaldegi doonaa milyankii waa noo muuqdaa waa mahadsantihiin saaxiibayaal muuqaalkana laagdhe oo sii sheer gareey daawadayaal sidaa wada ogtihiinba waxaa maalintii shalaheed baraha bulshada qabsaday gabar la yidhaahda xayaat iyo nin iyada si hoose isku qabeen ayaa baraha bulshada qabsaday hasaatee bal marka hore waxaad ogeen ayaan sheekada kaaga bilaabi doonaa horta labadan qof sheekada haatan soo baxday waxaa ka horeysay ninkani gabadha horta sida isku barteen ayaa idinkaga bilaabaya sheekada ninkan wuxuu tagsiila ka ah dalka Uganda halkaasna daawadayaal leen ama responsors u taqaanid ayuu kaga jiray oo wuxuu doonayay inuu dalka Canada aado gabadhan waa taqaanaan waa gabar TikToker oo caan ah waa la isku soo xiro gabdha ayaa daawadayaal isbarashadu ka shaqeeyay gabar Kampala joogto oo magaceeda lagu sheegay Farxiya ayaa markay isbarashadu ka shaqeysay labadooda halkaas ayaa daawadayaal sheekay muddo socotay isagoo soo baxamar ayuu yimid sheekada cirka ayay sii gashay jaceylka cirka ayuu sii galay iyadoo way baxday Kampala ayaa tagtay si qarsoodiya sheekada cirka ayay sii gashay jaceylka waa sii balaartay ugu dambeyn waxa lagu heshiiyay maadaama ninkani safar uu noqon doono dhawaan dalka Canada aadi doono in hawsha la soo gabagabeeyo hadda waa jaan qaadana filaya wiil marka iyada ka yar xayaat ka yar ayaa marka daawadayaal meeriyay hawshu waa la dhameeyay sheekadii waa sii socotay jaceylka waa sii socday ninkan odaga xamar ayuu soo aaday sheekadii jaceylka waa sii balaaratay wixii nin inaag dhaxlici jiray ayaa dhacay markay sheekada halkaas marayso ninkan sida idin sheegan oo dhawaan uu dalka Canada aadi rabo ayaa marka waxa dhacday in muuqaal xasuus ah la iska duubo muuqaalkaad aragteen ayaa la iska duubay waxaana muuqaalkaas lagu duubay guriga xayaat ayaa lagu duubay hadda waa la jaan qaadina filaya muuqaalkaasina guriga xayaat ayaa lagu duubay waa tahay wadareemi karaysaa marka laba qof oo isqabto waxa soo dhex gali karaya wax walba tuuno iyo maseer waxba yimid waa la kala tagay oo fiirsada xayaat hadda waa single waa la kala tagay ninka odaga markii la isfuray daniis holiis ayuu iska raacay gabadhan ayadana waa TikToker oo shaqadeedii xayisiimeed hoolida kale ayaa ka badnaa duurka ayay gashay gabar marka iyada guriga xayaat la joogto saaxiibteeda ayaa muuqaalka daawadayaal bixisay muuqaalkii ayay bixiso haatan waxaan kula wadaagaya markaan kula waxaad ogeyn ayaan kula wadaagaya muuqaalka $800 nin Kenyan ayaa laga siistay oo dalka Kenya joogo muuqaalkaas sababta loo gato wax kala maano waxa la dhex geeraba website gabdhaha Soomaaliyeed qaqaawan lagu keediyo ayaa lagu biirin doonaa oo gabadhii haatan waxayba ka walwalsan tahayba in muuqaalkan hadda la wareejinayo waxaba kaga sii daranba in muuqaalkeeda lacag daawada la kala siistay in muuqaalkeedii lacag la kala siistay ayay haatanba walwal kugu badan ku hayaaba maxaa soo kordhay marka waa su'aal waxa soo kordhay daawadayaal eelka marka gabadha xayaat ayaa daawadayaal xalay ilaa haatan aan hadlayo wixii wadan shir eelka ayaa isku yimid waxa go'aan marka lagu gaaray maadaama sheekadan ay soo baxday ninkani gabadha ay kala tageen eelkaana aynan u dul qaadan karin wax la yiraahdo ceeb u dul qaadan karin in gabadhan baraha bulshada gabigeeda laga saaro in gabadhan gabi ahaanteed baraha bulshada laga saaro oo yaa soo jeeday waxa soo jeeday awgeed yaa kala soo jeeday habirteed yaa kala soo jeeday walaalkeed iyada ka yaro meherka wax meerinayay Kampala isagana sidoo kale go'aanku waxa uu ku lahaa intaas ayaa soo korortay oo gabadhii waxa lagu heshiiyay in baraha bulshada laga saaro eelkaan u dul qaadan kareenin wax ceeb la yiraahdo u dul qaadan kareen wax ceeb la yiraahdo aynan u dul qaadan kareeninba waata daawadayaal maadaama marka xogaas ay soo kordheen waa muhiim inaan kula wadaago sheekadaas ayaana taagan sidaad ogeedeen leh baraha bulshada muuqaalkaas waa la wareejinay laakiin hadda waxa taagan inta hadda aan kula soo wadaagay ayaa taagan waata daawadayaal aragtida waa muhiim muuqaalkana laagdhe oo sii share garay